anigoo intii aan social media ku jiray aad daawaneysaan idin soo hortaagnaa abidkay been sheegin ayaan shalay waxaan idin sheegay been cad oo aan sal iyo raad lahayn oo aanan biyo soo marin sideedii baan idinku dhiibay beenta ilahayna hayga cafiyo idinkuna raalli ka ahaada beenta aan sheegay waxay ahayd waxaan Soomaaliya hal qarnigii waxay soo saartaa ninkaasi adduunka saameyn buu ku yeeshaa afrikana waxbuu ka bedelaa magacna adduunkan buu kaga tagaa iyo taariikh iyo buugaag laga qoro ninka maanta soo baxayna waa maxamed abiib rubuc qarnigii Soomaaliya maxamed bay soo saartay booramaana dhashay halka sheekadu markay mareysay oo aan sidaa waxa ku dhakada ugu qaatay oo aan leeyahay ninkani waxana ka sheekeynaysan uu ka fog yahay hamigiisu reer hebel waa dhaafsan yahay ninkan wuxuu u socdaa African madaxweynaha African Union wuxuu u socdaa United Nation waxana ka sheekeynaysan ninkan waxaan ka dhaxarkaa baa taaganahay madaxweyne Afrika hogaamiya United Nation UN ninkii hogaamin lahaa weeyaan ban ninkii soo qoray halka markay mareysay saan laha hayay waxana ka sheekeynaysan ninkan ayuubu ninkii boorame dalaq reer boorame yiri soo baxay soo yaacay maanta wana saxasilaya bakhdi iyo bukhdi uu ninkaas dhigay markii aan daawaday waxaan si ninkan ugu yaraan African Union buu socdaa ninkii baa waxaan arkay markii reer boorame ay soo istaageen mikrofonkii qabsaday horta koow markuu mikrofonkii qabsaday bani ku qabsaday iyo naxdin shaq aniga shaq bay gadahay okay halka markuu marayay ayuu wax allaale wuxuu ninkaasi yiri oo dadkii ula yimid may jirin anigu waxaan markaa is iri ugu yaraan ninkaasi wuxuu oranayaa waxaan ahay madaxweynaha Awdal State okay ma aha Soomaaliya madaxweyne muu yooro waxa oran lahaa at least xisbi uu sameeyay wuxuu oranayaa xisbi uu ku dhawaaqaya ama madaxweyne ku dhawaaqaya ugu yaraan ama xisbi uu ku dhawaaqaya labadaas ka yar ninkaasi wallahi oo billahi oo tallahi inaanu maxay ninkaas ku dhawaaqay maanta hadda waxa loo leeyahay maxamed baa xanaaqay maxamed soo maslaxa noo soori hal maslaxo allah ma ya raali ahaa halka sheekadii niiko iyo hinba horta ku soo dhamaatay marka waxaan u sheegay maxamed abiib horta waxaan noqday qofkaas ilaahayna waa isku diray waxna ma helin horta madaxweyne muuse isku dirtay reer Awdal wuxuu ma soo kordhin adigana cid dib waxaan kuugu kacaysaa ma jirto shalay waxay ahayd at least in lagu maslaxo oo